kulan ballaaran oo taageero heel iyo hooba la ugu muujinayeen ra'iisul wasaaraha dalka odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha Hawiye ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgaradka iyo cuqaasha beelaha Hawiye waxaana looga dooday xaaladaha dalka Soomaaliya isxog wareysi iyo qiimeyn dhanka sare oo laga sameeyay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalku marayo mas'uuliyiinta hadallada iskaga dambeeyay ee madasha khudbooyin ka soo jeeday ayaa isku aragti ka noqday dhacdooyinkii ugu dambeeyay kuwaas oo eedeymo u jeediyay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhammaada ee farmaajo oo ay ugu baaqeen inuu faraha ka baxo arrimaha doorashooyinka isla markaana taageero u muujiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxayna dhanka kale baaqay u jeedeen beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada qatartu waxaad moodaa maalin walba maalinta ka dambaysa inay ka soo siyaadi hadda saakay wararka aan helayno waxaa ka mid ah in madaxtooyada 3 ciidan iskula jiraan oo qolobo qolo kor ka haysato isqabsiga iyo ishaysiga marka shalay hadoo warqad ahay doo qoraal ahay hadoo fikir kala duwan ahay hadda maanta meeshaas ay mareen xaaladaas aan ugu gadaaman wax garadkii waxaan nahay deegaankan xabaduna waa taqaaniino haday bilaabato qasaarada ay keeni 99% dhibic idinka iyo waxaad mas'uul ka tihiin ku dhace waxaan rabnaa arintaas in farta lagu fiiqo oo ra'yigeena anagoon hagarsan inaan ku bixino inaan xabad u dhicin xabad hal ma keento natiijadeeda waa naqaanaa maantana cidda fursad haystaa bari meeli doonto waxaan marka ku baaqaynaa cod dheer ku sheegaynaa annaga odayaasha Hawiye oo hogaamiyaasha dhaqanka iyo waxgaradka oo dhan ka kooban in la joojiyo dagaalkaas iyo wixii sabab karo dhan waxaan leenahay wadanku wuxuu ku jira xaalad kala guura doorasho lagu socdaa wadadeedii waxna waa socdaan waxna waa dhameystiri waa bilowday waana socotaa dhaxday joogtaa doorashada fursad hal la siiyo madaxweynihii hore xilkiisu dhamaaday waxaan aaminsanahay mushkiladan asagu inuu aasaas u yahay tiiran inuu yahay aaminsanahay ina farmaajo ka wareego doorashada horteeda caqabadaha ka qaado wixii uu raba asagoo murashaxa hala sinaado dadka sida asiga ah waxaan rabnaa marka wadankan wuxuu daawaa oo dhibaatada looga bixi karo oo mushkiladana ku xalismi karta waxa ka jira doorasho in la helo hufan oo xalaal ah oo daahfuran oo la aamini karo ayadaasan ku baaqaynaa ra'iisul wasaare Rooble waa soo dhaweeyayna go'aanada uu qaatay markii hore hadeerna waxaan leenahay ra'iisul wasaare ku hogaami doorashada hufnaan iyo firfircooni iyo in la tashi la sameeyo madasha wada tashiga qaran asagana intaasan ugu baaqaynaa waxaan leenahay in cod dheer ku sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan dawlad goboleedyadu doorashada in la taageero laga wada shaqeeyo dawladnimo noo daawa waxaan ku celinaynaa oo kale to aanan ka aaleyn beesha caalamka oo door muhiim ku leh dalka Soomaaliya iyo gaar ahaan doorashada inay qayb lahaata ka qaataan inaan la isku qabsan doorashada oo cid ka soo caqabad ku ahna ay talaabo ka qaadaan taasna qoladaasaan siinayna marka warku waa dambeeyaa odayaashan u fadhiya dheetaankiisi mar koobaad iyo mar labaad ka badan soo dhawaada aad u mahadsantihiin aad u billahi tawfiiq ikhwatul kiram assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh cid kasta magaceeda iyo darajadeeda ayaan mar labaad salaanta islaamka kula salaama mudanayaal iyo marwooyin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh بعد السلام هذا الكا إنه النحر يشنا ولا الرباء إنه صوغا بتنا ولا الرباء أخيارتي جاه الرئيسان الشيكتي أروح الرباء إن نكبل لابو حالي
iyo habeen hore labadii warqadood oo iska soo daba saaray maxamed cabdulaahi farmaajo laba warqadood oo qatartii ugu dambaysa Soomaaliya gelisay ahaayeen wuxuu yiri ra'iisul wasaarihii xilgaarsiinta oo dalka Soomaaliya wax sharci ku dhisan hadda asagu ka joogo aan xilka ka qaado yiri ciidamana iyo diro xafiiskiisa u diray meel ka dambaysa hawiyow oo aan nabad ka raadinaynaahi ma jirtaan idin leeyahay wuxuu yiri alla diiday fulayow ma had nabad ka doonayso haddii aadan dagaalamin adaa lagu dilayaa hawr maxamed cabdulaahi farmaajo dastuurku 4 sano siiyay inuu wadankan hogaamiyo waxyaabaha looga fadhiyo ummadda Soomaaliyeed ka sugaysa waxay ahaayeen qof iyo cod doorasho ah wadanka inuu gaarsiiyo waa ku fashilan ma gaarsiin tii dad baneeda loo diray extension 2 sano ah keensaday waa laga diiday labada aqal ee baarlamaanka hortiisa maxamed ra'iisul wasaare rooble lagula wareejiyay wadanka inuu gaarsiiyo doorasho dadban ka qabto dibidaabiyo iyo hagar iyo maalinba meelka jiid iyo guddi qaldan iyo balaayo la daba kacay wuxuu uu dan lahayna wuxuu ugu dambeeyay xalow sheegay inqilaab dadban oo rabaa inuu keensado maxamed cabdulaahi farmaajo inqilaab dadban oo damacsanaay waligiisna maalinna kuma fikirin inuu doorasho dalkan gaarsiiyo wuxuu u hinraagaa 22 sano maxamed siyaad barow rabaa qaabkeeda inuu wadankan ku haysto hawyow mana naga suuragelayso Soomaaliyey meel kastoo joogto Soomaalinimo waxay ku imaan kartaa in dawladnimo timaado dawladnimana xilliga hadda la taagan yahay inqilaab kuma imaan karto mana yeelayna mana aqbalayna haddaan aqbalaynana 20 sano baashu kala raaracda la aqbali lahaa waxaan rabaa hadowlahay xushmo maxamed cabdulaahi farmaajo xushmaha dawlaha shirka laga soo saaray ayaa waxa warbaahinta u akhriyay sirar oo kamid ah dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu ugu dambeeyay kaarka ugu dambeeyay xal xogtay kaarka ugu dambeeyay lagu xushmay lahay oo lagu qadari lahay xal xogtay nooguma dhidna wax dambe ku qadarino waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta waa ku mahadsan tahay inqilaabkii dadbanay oo xalay iska badbaadiso saaka iska fashilisay waa ku mahadsan tahay saakana hawiyaa garbahaada joogay cabsana hortaada u soo leen wadanka doorasho gaarsii wixii la qaldanay sax waxa dhimana toosi reedahana laga taagan yahay ilaahay moogay ibni aadan aad ka cabsanaysana ma jiro انت لقادتها محمد عبد الله فرماجه وحو حلي iyo shalay wada waa qalad intii la qaadatay ku taageertana waa qaldan tahay wax xushmada oo naga dhaxeeyna ma jiraan oo iska dhicinayna qof kasto ma joogta ka toos sharciga u hiili dadnimada u hiili dawladnimada u hiili did wax waqtigaas ay wadaan waxaan rabaa hadalka la soo kaabiyaa la yiri inaan badiyo mar rabo Soomaaliyey maqal caalamkow dalkan wax badan idin kaga baxay wax dulmanna waxa ka jooga maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku dheelaya dawladnimadii Soomaaliyeed oo dakhliga faraha badan iyo duulaanka darab istaag faraha badan oo idin kaga baxay war codkiina iyo ajirkiina kula dagaalamo naga qabta cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo dalkaas duminaa naga qabta sharci daradaas wada naga doq wax alla waxa 4 sano la soo dhaafo fuli waayo rabaa hadan inuu ku darsado 20 sano marka yeelayno assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa mahadsantiin dhibaato badan ayaa dalkan soo martay aqliga waxaana loo siiyay waa inaan qiimeynaa shalay maxaad ahayd
maantana maxaa tahay maxaa isbedelay maxaa hoos aaday maxaa kor aaday maxaa khadka dhaxa ku sugan intaas haddii ayna jirin caqli ma jiro waxaan rabaa horta juqraafi ahaan awiyow intaad degan tihiin Soomaaliya intay ka tahan idin sheego xagga waxaad u gashaan gaalkacyo halkaas waxaad u gashaan Ethiopia halkaas waxaad u gashaan Baydhabo halkaas Kismaayo bal sheega waxa ka haray Soomaaliya dhulkaas adinka degan ما دفاعنا ما له ربع سنة خيراتك كجرة مركي 50% اللي لوكاس كجرة دتكيس أو وحول نقضي كتاب بوغير أو دستورة أو صومالي يكون شيء مركل لجوه شيء أنا دن جود أن لجو قرين ayay la wada fariisteen isagii ilaalinayaan hadaad ilaalinaysaan ninkii ku yimid ee lagu doortay inuu ilaaliyo idinkaga horeyn ayay mudneed inuu ilaaliyo ninka ku yimid ee isaga oo sugaynin inuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo haddana u suurta geliya in lagu soo dhaweeyo hadduu ilaalin waayay ma ilaalin kartaan adinku وحاجة ما أنت مرحلة أي تاجنته مرحلة ما أنت أي تاجنته يسقى شيخين منه مدحوينه هي وقت يصير ماضي عقل إنه سن شغالين المرة دولية حل كان كقاعدة الإزاري ورمع حسن حاسس الذين واسين waxaan rabnaa kaarka ugu horeeya oo aan xogayno waxaan leenahay xabad ma waxaan ugu baaqaynaa inuu joojiyo saacadaha nagu soo fool waxa uu wado oo isbedel sameeyo hadii isbedelkaas la waayo ay dib u soo noqon weyday intii yarta ahayd ee lagu deganaa waxa yar maxay ahaayeen doorasho oo loo idmaday ra'iisul wasaare Rooble inuu dalkan ka sameeyo si cadaalad ugu sameeyo hadii farqaha la isku dhagaayo ee aan lees ogolayn in dalka doorasho ka dhacdo doorasho haday dhici weydo sida caalamka aan ka aragnay Soomaaliyana aan ka aragnay waxa ku xiga waa dagaal iyo xabad war xabad dad loo tahay gabadha waxay dhashay dhageysa gabadha waxay dhashay wiil aan weerashay mid kale oo aan dhalna la qabsatay waa la isku dacweeyay markii la isku dacweeyay war aan waxaan sameeynaa tii aan dhalna waxay tii noo kala gooya laba raawo qabay wiilka tii dhashay waxay tii ma intii laba loo qabay iska dhaafaystay maanta way ka timid ma taagna waxay taagan tahay la kala gooyo war ma tamasmaa maanta waxay taagan tahay annagu dalkan waxaan u rabnaa dawladnimo wax kale deeqa male dictatoriyad 12 sano ayayna soo haysatay 30 sano kadib maxamil karmo war maxamil karmo 30 sano kadib dictatoriyad cusub maxamil karmo dalkani wuxuu diyaar u yahay dadkiisu in Soomaaliya ay gogol u yihiin kula noolaadaan nabad iyo dawladnimo waxay diyaar u yihiin inay taageeraan wixii Soomaaliya ku heshiis hadii la waayo oo Soomaalina ay qaban weydo cid ka qabata Soomaaliya la waayo hadda waxa ku xiga iska qabanayaan Soomaa waxa ku xiga waa la iska qabanaa Soomaa waxa jira marka waxaan ku adkaynaa carabka annagoo isugu roonaanayna Soomaaliya ugu roonaanayna waxa jira maslaxadda dadkan waxa ku xiran maslaxadda guud ee Soomaaliya hada awtiyoodii kala ninka jooga raas canseer maslaxadiisu waxay ku xiran tahay Muqdisho ninka jooga kudaa jooga wuxuu ku xiran yahay maslaxadiisu
muqdisho ay ku xiran tahay adinkaana ilaahay idin siiyey oo deegaan ka dhigay inaad Soomaaliya marka u raadisaan dawladnimo sax maxaa idin diiday wax diiday ma jiro waxaan hubaa xaqiiqda waxa ay tahay nin dan leh dantiisu ma gaaro ilaa uu saddex qodob hagaajiyo kow waa inuu og yahay waxa uu raadinayo maxay yihiin maxaa ka maqan amaana naga maqan horumar naga maqan siyaasad fashilantay ayaan rabnaa inay noo toosto waa kow laba waxaan naga maqan dalkeenu waxbarashadiisa waa baaba'day waxay joogtaa xaalad ilaahay ogyahay waxaa loogu talagalay inaan dadkan waxbarashadana laga hormarin caafimaadka laga hormarin arrimaha bulshada oo dhan laga baabi'iyo midda maanta ay joogtayna sababtay inaan ogaano waxa aan leenahay oon xaq u leenahay horta rights ma xuquuq u leenahay inaan noolaano ma lihin warma u leenahay xuquuq noolaad hadaad weysay oo xuquuq xurriyatul qowl aad weysay oo xuquuq amni aad weysay waxa aad sugayso oo aad raadinay moogtahay waa inaad heshaa xuquuq amni xuquuq siyaasadeed xuquuq xurriyatul qowl iyo xuquuq nololeed ayaad rabtaa inaad hesho waxaadna ku heli kartaa cadaalad iyo in dastuurkii siduu sax loo helo haddii loo waayo hadda qolo kasta iyada ismaamulaysa inaan ismaamul maxaa diidayo qolo kasta iyada ismaamulaysa inaan ismaamulno maxaa diidayo haddii Soomaaliya waxa lagu heshiiyey ninkan jooga ee fasahaadka wado ay ka qaban weydo reerkan waa samray samirkii waa ka dhamaaday marka inta aysan gaarin samirkii iga dhamaa waxaan rabaan sameynaa war 4 saac la haystaa xaqiiqda waxaan leenahay waqtiga aan ku qabanayno waqti dheer ma xalay waxa soo baxay wixii habeen hore ka hirooyay iyo wax imaan doona waa ognahay haddii aad bixi lahayd ha bixin dalkan kama bixi karis war cid ka soo dulminaysana dalka ka bixi mayso dalku waa lagu wada dhimanaa intaan la wada dhiman hal la helo xal uu horseed u yahay in ra'iisul wasaare Rooble uu u helo xurriyad wixii loo idmaday in uu si habsami loo wado marka aan leenahay saas waxaan taageeraynaa wixii Soomaali ku heshiisay oo loo idmaday Rooble ma aha wax kale aan taageerino cidda aan taageerayno wixii Soomaali ku heshiisana waxaan leenahay iyada had doonto meesha kaleys marka waxaan leenahay ra'iisul wasaarahana waxaan leenahay war adigu wixii lagu idmaday oo aad mas'uulka ka ahayd inaad si cadaalada Soomaaliya uga qabataan kugu taageerinaa haddii farqaha lagu dhago oo aad qaban weydana adigu hadda intaad awooddo waa qabatee cid markaas xal keenaysa eedan ka sugnaa laakiin waxaan isku raacnay in arintan maanta jirta mid loo dul qaada kara aysan ahayn sida arintan maanta jirto mid loo dul qaada kara maaha ilmaheeni ma ogola odayaasheeni ma ogola siyaasigeeni ma ogola haweenkeeni ma ogola ururada bulshada ma ogola marka waxaan rabnaa baashan xaqiiqda waxay joogtaa hawiyow dulqaadkii badnaa oo samayseen waa ku baasantiin saacado iyo maalmo si dulqaata isbedelna waa sugeynaa hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh على رسول الله أولا إله سبحانه وتعالى السلام هذه شهور إسكاله نقدر يضد إسلام سو كان جالسنا ورحون ثانيا وحومها علينا وضيال كديبك كدن قدي دلك يدتك يديجانك يدينته ماشي أي مريان كدن قي أركي ديبك إيو أنت جوجش عندك رجع سويري وحومها علينا أنت كسوق غيب جالسنا سوق على أولاد دنقتي howlahooda soo deedo waan mahadcelinaynaa inta kadib waxaan leenahay meesha waxa isugu yimid waa deegaanka ballaaran oo Muqdisho iyo dadkeedii waxa isugu yimaadeen waa dhib iyo dhibaato haysato dadka iyo deegaanka iyo dalka marka wax diidahaya male meesha ay ka socotana inay tilmaamaan waxay ku aadan tahay inay ka sheegaan sidii looga bixi karana ay markaa ay tilmaamaan wax diidahaya male waxaan leenahay
odayaalka dhaqanka ee beelaha hawiye ee hogaaminaya maxamed xasan xaad aad ugu mahadsantihiin gogosha iyo dhigitaanka iyo ka danqashada waad ku mahad celinaynaa anigu lafteyda ka koobaana waa u mahad celinayaa insha Allah waa mahadsantihiin inta kadib nimiya waxaan leenahay dalka iyo dadku laxjeclo badan baa naga hayso waa dalkanagi waa deegaankanagi waa dadkanagi dawladda haatan jirtana waa teeni waxaan leenahay wixii tubxun ah lagu wado ha laga daayo cidna ku colaadimayno cidna ku xumaymayno waa talo odayeed waa ka digaynaa waa ka bixinaynaa waxaana rabnaa tilmaanta la bixinayo wixii wanaagsan laga qaato waxa xunna aan qolo lagu colaadinin midda haatan joogto waxaan leenahay ninka la yiraahdo maxamed cabdullaahi farmaajo hadda wakiilkiisa waxaan ku eedeynayna ma aha qabiil iyo ehel uu ka soo jeedo midna ku eedeymayno tala xumada uu wado ee aan leenahay dadkii deegaanka looga danqo hadda waa madaxweynihii hore ee waqtigiisa dhamaaday wili inta uu ama asaga ku soo laabto ma qolo kale ha timaade qolo kale xilka ku wareejiya inuu filada sii jooga waa iska nidaam laakiin wax sharci darro ah ama dad iska horkeenayo ama deegaanka qaribayo oo kula talimayna kana yeelimayno mid ka dambeeyana ka qaadamayno asaga kaligiis kuma koobno ninkii ka dambeeyo yimaadana wuxuu dhamayo waxaan leenahay kaama aana yeelin inta joogta dhihi doonto waxaan leenahay marka hore mudana madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo weeftada waayaha soo tuureysay warqada ah ee dadka iyo baadi deegaanka aan u rooneen waxa kaaga sii horeeyay barqacad inaad tiri dalka doorasho aadi waxaana ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha ayadii macal amnigeeda baarlamaan hortiisa ku tiri meediyaha gashay adduunka ay wada gashay tii ayada faraqa ku dhagan tahay nin weyn oo odayo mas'uul ah oo mas'uul soo noqday baa tahay waxaan kaaga digaynaa wixii ceeb iyo sharaf darro kaaga imaanayso isaga har musharaxnimadaadu ku ekow musharaxiinta la mid noqo dalka iyo dadkana talad ku leedahay nin oday ah tahay talada ugu wanaagsan ka dhiibo intaas asagu leenahay faraynaa waxa noo soo haray ninka odayga ra'iisul wasaaraha mudane ra'iisul wasaare waxaan leenahay xilka Allah kula garab galo adaa hadda xil gaarsiin ah waxyaabaha iyo caqabadaha idin dhaxeeya adiga iyo madaxweynaha yaaysa dadka iyo deegaanka dalka wax u dhimin doorashada ha socoto hadda waxaan u maleynahay aqal sare waa dhameystiran yahay golaha shacabka wax badan baa soo baxay gadoomiyihii baarlamaanka hadda waa xildhibaan cusub meel laga laabto ma joogto asuu laftiisa war dar hadda uu ka yaray meesha la yiraahdo iskool booliisiye war mas'uul xogaa waa iska caato aha warkaas waxaan leenahay kuguma haboonay laakiin had yar kugu ceebay mayno nin oday ah tahay haddaanahay odayaalka dhaqanka wixii xunaan ka digaynaa wax wanaagsan aan faraynaa dalkan qalalaaso uma rabno showbar ma rabno ninka ay la tahay waxa hadda jira inay saxan yihiin marna lama saxno waxaan soo arki jirnay meesha ay beeli jirtay ku socotaa waa ka digaynaa odayaalka dhaqanka nahay dib dama yaa loo celinin waxaan leenahay ciidamada qalabka sida nooc kasta ee ay yihiin inaad siyaasadda ku milmin meel ladin dari iyo meel baad amarkaadu uu qaldan yahay mas'uulad wadanka ka tiina inaad ka digtaan saraakiisha sare iyo midda hoose ee jananada iyo kulli waxaan leenahay deegaanka iyo dalka iyo dadka leedihiin waxa anaga idin farayna ma waxa ilaahay idin fariyood mas'uulad u dhaarateen waaya sidaasaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin hada wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh awiyaha meeshaan isugu yimid waxa buulkooda ka soo kiciyay waa waraaqyaha iska soo daba dhacay haddii aan nahay beelweynta hawiye waxaan ku baaqaynaa in ra'iisul wasaaraha shaqadiisa loo madax banaaneeyo maamul goboleedyada waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha hawshiisa u madax banaaneeyo ha la qabtaana ha garab istaagaana doorashadana hore ha u sii wadaana yaanan dib loo noqonin hawiye wuxuu ka qaylinaya waxa waaye fiinay maxaa ka qaylinaysaa galowga soo socdo waa yifka soo socdo waaye hawiye wuxuu u jeedaa meesha ay wax u socdaan waxba ma mooga waxayna isugu yimaadeen inay ra'iisul wasaarahaas shaqadiisa loo madax banaaneeyo hawshiisa u dhamaystirto waa xil gaarsiinaa la yiri marka ra'iisul wasaaraha yaan la carqaladaynin cidda carqalada ku wadana waa is ogtahay ha ka joogto maamul goboleedyadana iyo noo aamusin annaga haddaan nahay beelweynta hawiye ee deegaankan ah inay indhaha ka fiirsadaan hawshaan oo ay yiraahdaan annaga maamuladeena waa noo dhisiin nabadgelyo aan haysanaa
intana yiraahdaan ay indhahana ka fiirsadaan hadhowna ay dadkan aan wax la qabnaa ay yiraahdaan aysan nagu fiirsanin waxa maanta dhibka ka taagan waa deegaanadii dawladnimada laga jeclaa lagu soo hiranayay haddii marka dawladnimadii meeshii lagu soo hiranayay caasimadda ahaa dab laga shido loo aamuso kuma wanaagsanaan leenahay maamul goboleedyada waxaan leenahay hawshaas gacanna ha ka geystaana ra'iisul wasaarahana ha la shaqeeyaana madaxweynahana waxaan leenahay gacmo geel jireed hoosta loo dhaqaa madaxdii qaranka wada tihiin kulligiin waxay yeelaysaan dalku nabadgelyo rabaa maslaxadii iyo wixii lagu socday hore ha loo sii wado hawiyana nabadu ku baaqaa xogashada ugu horeysa ma aha xabad waa xal loo baahan yahay xabadi waaba ninkii u ordaayay asagaaba tagi doonee hawiye nabadu rabyaa ra'iisul wasaaraha inaan lala shaqeeyo rabaa maamul goboleedyada inay hawshii loo idmaday oo ra'iisul wasaaraha inay gacan ku siiyaan rabnaa in hawshaas la dhamaystirnaa rabnaa wabilaahi tawfiiq salaamu calaykum alxamdulillaah وأصلي وأسلم على من لا نبي بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف والباهي ماشان مقعة إيا منصبك إيا ميزانك وكفر ديان كسلامية انتاس كدب وحي وراها دغودي أنا إيقهر أيا قدمين أمر لهين وعن اسكدية إنا دور كلمة كسو كوبا وركيغا kuna cusleeya kuna raaca madasha iyo shirka marka koobaad ummadda Soomaaliyeed doorasho ayay aaday doorasho la isku waafaqay dalkan daawadiisuna waa doorasho wax aan doorasho ahayn oo maantay ummadan midnimadeeda iyo qarannimadeeda wax aan doorasho ahayn oo daawo oo ma jiraan dalku doorasho rabaa wax alla wixii isku dayaya in ku darsasho iyo xafiisi joogidna dalkan qof kastoo ku fakaraya allaha ka soo aruuriyo allahana ka hanuuniyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxaan leenahay doorashada ummadda Soomaaliyeed ku idmatay ayaa laga rabaa adigoo karti iyo hufnaan ku shaqaynaya inaad horboodidooda hogaamisid adigoo la tashanaya madasha qaranka adigoo dhammaan qulubta ummadda Soomaaliyeed ilaalinaya adigoo dadaalaya la tashiyadaadana si alla ka cabsi ku dheehan ku gudanaya ayaan waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyaddana hore u soco waxaan rabaa inaan madashan ka sheego aniga caadifad ma raba inaan ku hadlo inaan xanaaq ku hadlo ma rabo inaan cabir leexsan oo gaar ku hadlana ma rabo magaaladan Muqdisho iyo ummadan Soomaaliyeed waxa qof walba u roon wixii lagu heshiiyay ummadan waxay ku heshiiday 4 sanaba mar in hogaanka qofkii Ilaahay u qoray uu hayo wixii intaas ka saa'ida xafiiska qabowga badan madaxtooyada ku yaala iyo madaxtooyada waxaan leeyahay anoo mar labaad ku celnay qofna ku caadifeynina hadii nidaamkii iyo systemkii Soomaaliya ku balanta la waayo waxa u baahan madaxtooyada Xuseen Maxamed Faarax Aydiida u baahan inuu dego Xuseen Aydiida wuxuu u baahan yahay madaxtooyada inuu dego hadii la waayo systemkii iyo nidaamkii Soomaaliyeed waxaan leenahay marka Xuseen wuxuu uga maqan yahay waa nidaam Soomaaliyeed hal ilaaliyo xasiloonida dawladnimada nidaamka Soomaalinimada riboodyadana soo gaarayay ma fiicna mana qurxoona suuragalna ma noqonayso in hadeer wadankan maanta aqli gaara iyo xuduud gaara lagu muqoniyo aniga warkayga waa soo khulaasaynaa hadii la yiraahdo intaasan ku soo koobayaa dawladnimo midnimo nidaam sharaf karaama rabnaa reer Muqdisho rabaan Soomaali rabaan madasha qarankana waxaan ugu baaqaynaa dalka iyo dadka iyo diintaba inaad badbaadiyaan aan idin ka rabnaa saasaan idin ka sugaynaa
oo ra'iisul wasaaruhu ugu horeeya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مرة وأنا بديو أنت كسر قيب قش شركان أو مالها غير كلا يبيد أو قد يد يبيد قف كسر مسكوا كوي يبيد يا مقعوا ليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثانية اوكي يا مر قف كستا مسبكو كوي ايا كو سلاميا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته walaalyaal anu mar rabo inaan war dheer meeshan ka sheego si aad wada ognahay odayaashii iga horeeyana tilmaameen dibka dalka ka jira محمد عبد الله فرماجة أيا أسبابه رون أيا الرباه Soomaaliya aan ismaqalno dibad iyo guud iyo dalka gudihiisa aan ismaqalno Soomaaliya hawiyowna dhageysta beesha caalamkayna maqla Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida aad ogtihiin doorashadii ayuu diiday ra'iisul wasaarihi ayuu shaqadiisii u diiday wada tashi ayuu diiday xala u dambeeyay waxa uu saaka weeraray xafiiskii ra'iisul wasaaraha waxa dirqi looga celinayaa inuu xoog ku qabsado xafiiskii ra'iisul wasaaraha oo loo idmaday kaligiis dalka inuu gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal waa qofka kaliya oo u idman inuu dalka doorasho gaarsiiyo inta kale hay'adaha dawliga saad ogtiin maandeedkoodii waa dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii aan nahay beesha hawiye sida la sheegay dabaal ma ihin doqonna ma ihin waxa la ixtiraamayaa Soomaalinimo dalkan Soomaaliya dibka soo maray inaanu ku noqon laakiin saacadan wixii ka dambeeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gacmaheena isaga qabanayna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gacmaheena isaga qabanayna waxaan qaybsanaynaa shaqada waa ku ballanay cid kastoo ogow cid kastoo maqal Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sharciga hadoo diiday ahal qabsada hadoo waayay maalinba inuu warqad meel ku soo tuuro dalkaana oo Muqdishona oo sal saarto reer Muqdisho waa diideen go'aanay ka qaateen cidii ku taageerta dulunkaas oo gacmaha kula jiro sharci darrada oo ku jiro cidii ku taageerta hadday tahay ciidan hadday tahay saraakiil hadday tahay beelo hadday tahay shakhsi waxaan u aqoonsanaynaa cadow in dhibaatadaas iyo sharaf darradaasna lagu haayo raalli ka ah ayagana cadow ayaan u aqoonsanaynaa cidii gacan ku siinaysa dulunkaas aniga intaasaan rabaa inaan ku soo koobo dib kale ma jiro dalka dhibka ka jira waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii aanay hawiyana go'aankaasan qaadanay aad iyo aad u mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq joogta xafladan ka soo qayb gashay rag iyo dumar bale qof walba masabka iyo magaca uu ku fadhiyo ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa la ii dambaysiiyey wixii la oran lahaana waa la yidhi laakiin meel ka waayi mahayo meel baan ka riixanayaa waxaan dadkaani halkaan iskugu yimaadeen ma aha wax qaldan ee waa nidaamkii systemka jira ee dawladnimo lagu gaarayo in ay wixii qaldanna sheegaan wixii saxsanna ay taageeraan
waxay in badan lahaayeen waxaan horumar lagu gaarayaa doorasho xalaala oo loo dhan yahay oo la wada ogol yahay ee hal la qabto markaan codkaa bilownay sanad baa ka soo wareegay waxaad moodaa in labadii sano ee la soo ceshay na lagu riixayo oo la rabo in labadii sano la gaaro waxaad moodaa barnaamijkii ahaa doorasho qof iyo coda oona ognahay qaabkii dadku u diidanaa inay ahayd dad diyaarsan ee wax loo diyaariyey in lagu fuliyo ayadii baa la rabaa in labadii sano in la gaarsiiyo doorashadii noocaas ahayd oo dadku u diyaarsanaayeen oo dadkii joogay doorashadii na soo martay ee ahayd maxaad dadka u dambaajiseen nin dooran doorta ha u dhahdeenoo dadka u dambaajin tiibaa nala ku wadaa waxaa u muuqatay musharaxa madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo doorashada qaabka hadda ay ku socoto hadday ku socoto inaan halkaa fakarka uu qabay oo ahaa guulaad gaaraysa ayaa tiradii uu tirsaday wax badan iska beddeleen waa adkaystay nambarkii hoos u sii socdo ark waa adkaysan waaye waxa ka yimidna waa arkaysaan xalay iyo hamii hore waxaan rabaa inaan u sheego dagaalyaqaan ma aha inta tuutaha qabtaa dadka halkaa ku nool dhowrka malyan ee xamar ku nool waayo aragnimay soo qaateen dagaal waa yaqaanaan ciidamada kaydkaa loogu yeeraa haddaad qodbadaynii hore aad dib u raacdo waxaan qoriga xabadda uga saarnay in ay nabad rabaan horumarna rabaan wayna aqbaleen waxaa muuqata hadda farsanka gelin baa muuqata maxaad la fadhidaan ka kaca si waddanka nabadgelya ka socota inaan anigu la wareega mooyaane dadkaani nabad ma ogola fikir ah in la faafiyo dadkaani nabad bay rabaan qoriga xabadda uma ogola way ka saareen way og yihiin dagaal wuxuu yahay laakiin musharax madaxweyne maxamed cabdulaahi waa ka maqnaa ma joogin waddanka annagaa u sheegayna uga digayna waddadii xumayd ee dhibka la ogaa lahayd waxayna gaarsiisayna aan ognahay dib ha noogu celin cabsigelinta ah adinkaa hanti lahoo guryo dhaadheer dhistay guryaha dhaadheer horey waa u dhisnaayeen waa dumeen waa la dhisay hadday kalifto waa dumayaan waana dhisi doonaa insha allah ma rabo inaan idhaahdo qoriga xabadda ha gelinine laakiin qasnadda buuxsada oo is-agdhiga odhan maayo laakiin way imaanaysaa warqadaha soo baxay ka gaarid bay weli waxay mudan tahay in laga gaaro waxaan international community-ga u sheegaynaa waxa dhacaya waa arkaysaan doorashaan rabnaa tartan ha galo hadduu soo baxo madaxweynihii waa soo dhowaynaynaa laakiin jujuub iyo xoog baan wax ku qaadanayaa ma dhici karto mana dhacayso tuutaha ciidanka qaba laftigoodu xaqdarrana cidna ku taageeri mayaan waana loo sheegay in badan inaysan siyaasadda ku milmin oo ay nabadgelyada iyo bulshada ay mas-uulka u yihiin ay u dhaarteen ee u istaagaan sida muuqata xildhibaanadii wakhtigoodu dhammaaday
qaar soo laabtay baa weli hunguri u muuqdaa iimaanka Allah idin gashaale qaabkii qalloocnaa ee shalay aanu arkaynay sidii u socday insha Allah lagu noqon maayo xildhibaanada koob iyo tobnaadna waxaan leenahay shacabka koob iyo tobnaadna khayr baan u rajaynaynaa iyo si ka duwan sidii ninkii shalay sheegay oo yiri December 31 kadib waxba abuurmi doona golo shacab ma jireen maxaa abuurmi doona ma golihii hore ee dhamaaday xilligiisii asagoo hadda dib loo soo doortay miyuu rabaa inuu soo celiyo garashada noocaasa dadka loo soo celinaya ma aha kuwan dadku waa og yihiin waxaad og tahay waana ku yaqaanaan waxa tahay adiga iyo wixii aad ku soo maamushay deegaankan ma qarinayno mana qarsanayno cadaalad haddii la waayo cadaalad darra imaanaysa waana waxa aan ka digayno ma rabno cadaalad darro cadaalad baan rabnaa doorasho la wada ogol yahay baan rabnaa kalmadda xagga dambe laga raaciyay ee haddii la waayo markeeday jawaabteeday leedahay laakiin waxaan kuu sheegayaa tuutaha inta qabtaa maaha kaliya inta qoriga sida loo isticmaalo taqaanaa wallaahi san ahayn waa qaldantay isisax waan ogahay ma dagaal baa ku baaqay dagaal kuma baaqay nabad baan ku baaqay intay hor fadhiday inta maqli doontaan nabad bay rabtaa xisaabta aad isku dhufatay ma soconayso 145 baa tira luntay haddii tira luntay waa in dagaal dhacaa si aanay garab la igu siiyo liiraa warada dhamaystir cidii garab kugu siisay cidii aan garab kugu siinaynba way u jeedaan xaq darro inaad rabto waa lagu dulqaatay intaad kursiga fadhiday waxaan sugaynay qofkii ku bedeli lahaa inuu yimaado ama adiguba ku soo noqo hadaartid bay naga taaganta laakiin maya wixii xalay hamee hore socday iyo wiilkii yarka ah oo sarkaalka ahaa wixii loo soo dhiibay wallahi ma nagu soconayaan oo billaahi ma nagu soconayaan waa la dhinac taagan yahay oo communiqueegii baa rabaa in la akhriyo waa raali gelin baan ka bixinayaa waqtiga hadallada aan dheereeyay codka aan kor u qaaday aad moodo inuu kuleel ka muuqdo maye dadkan gaarsiinaya kuwa aan meesha joogin baan rabaa inaan gaarsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo isugu yimaadeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee beelweynta Hawiye waxaa lagu soo saaray qodobada soo socda maanta oo ay tahay taariikhdu 27 bishii 12 2021 shirka qodobka ugu horeeya ka soo baxay waxa uu yahay qodobka koowaad waxa uu yahay 25 bishii 12 2021 xafladii iskool bulisiya ka dhacday waxaa ka hadlay ما بشغينا كان هرتوا أبيبل هذا ولا مغلى سوما أوكي شن يلا تنكي بشي ديسمبر لما كن لا تنيكو حفلة دي سنة جوردي عيدا كبوليس كصوماليات كعاد إسكول بوليسيو وها هالكاس رباط غلدان كشيء قدوميها gudoomiyaha baarlamaanka ahna hadda xildhibaan cusub oo maaragtay baydhabo lagu soo doortay isaga oo qaadanayay amar madaxweynihii hore madaxweynaadkiisu dhamaaday maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo siiyay oo ahaa bisha kowdeeda sanadka cusub 2022 inuu qabto shirweyne ay isugu yimaadaan baarlamaankii hore waqtigiisu dhamaaday isagoo waxba kama jiraan ka soo qaaday xildhibaanadii la doortay oo 54 xildhibaan aqalka sare iyo 20 aqalka hoose ee baarlamaanka ujeedooyinkana waxay ahayd inuu dalka inqilaab geliyo taasna beelweynta Hawiye waxay cod dheer ku leedahay in aanay aqbalayn waxaas uu soo dhoodhaway madaxweynaadkiisu dhamaaday maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxamed mursal waxa looga digayaa cidda aad dulminaysaa waa Soomaali weyn cidda aad dulminaysaa waa beelweynta Hawiye oo gogol u ah nabadda iyo xasiloonida iyo dawladnimada Soomaaliyeed haddii aad ka joogi weyso falalka guracan ee qarandumisnimada ah beelweynta Hawiye waxay ka qaadaysaa tallaabo sharciga waafaqsan taariikhda
taariikhdana gala qodobka labaad xalay saq dhexe oo ay taariikhdu ahayd 27 bishii 12aad 2021 waxa uu waraaq soo tuuray madaxweynihii hore mudxuleedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuuna shaqadii ka joojiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kadibna wuxuu sameeyey inqilaab military oo ciidamo ayuu dul dhigay xaruntii ama xafiiskii ra'iisul wasaaraha jidadkana wuxuu ku gooyey baabayaal iyo hub culculus arrinta inqilaabka ah na waxa fashiliyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan haday noqon lahayd militariga booliska iyo ciidamada maaragtay gaarka ah aad baan ugu mahadcelinaynaa ciidamadaas arrintaas fashiliyay madaxweynaha mudxuleedkiisa dhamaadana waxaan uga digaynaa hadii aan nahay beelweynta hawi inuu joojiyo hagardaamada uu ku wada dawladnimada Soomaaliya inuu joojiyo kaligitalisnimada magaaladan Muqdisho waxa uu yimid 2017 bishii December uu yimid dhamaadkeedii waxaana la doortay bishii Febraayo 2017 la doortay 8 Febraayo 2017 muddada 5 sanaana dalka wuxuu ku hayay burburin iyo hagardaamo marka okay qodobka labaad madaxweynaha mudxuleedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ka horwareego geedi socodka doorashooyinka dalka ka socda ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble bacdama uu ku socdo waajibaadkii loo igmaday isla markaana ay ku taageersan yihiin tallaabooyinka uu qaadayo danayaasha bulshada Soomaaliyeed iyo inta badan waxgaradka Soomaaliyeed ee u naxaya dalka iyo dadka 3 ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan ku bogaadinaynaa inuu hawsha uu gacanta ku hayo ku hogaamiyo dhab ahaanshiyaha maslaxada ummadda Soomaaliyeed isagoo aan wax ara ah ka muujinaynin qaladaadka dhinac kasta kaga imaanaya ee aan waafaqsanayn shuruucda dalka isla markaana la tashanaya madasha qaranka ee uu gudoomiyaha u yahay 4 dhammaan ciidamada qalabka sida iyo xoojiyeyaasha AMISOM waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku milmin siyaasadda guracan ee danaysiga ku salaysan dhinac kasta ha ka timaada 5 dhammaan walaalaha beesha caalamka ee taageerada la garab taagan dawladnimada Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay taageeraan geedi socodka doorashooyinka dalka ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare horena aad u sii taageerteen 6 dhammaan madaxda maamul goboleedyada waxaan ku adkaynaynaa inay ka soo qayb galaan shirka uu cilaamiyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble sidoo kalena shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay taageeraan geedi socodka doorashooyinka dalka ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ugu dambeyn waxgaradka iyo cuqaasha hawiye waxay ku adkaynayaan madaxweynaha mudxuleedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo inuu si shuruud la'aan ah u garab istaago doorashooyinka dalku uu ku jiro oo ah qaabka isaga u suuro galiyay inuu dalka madaxweyne ka noqdo taas hadii uu diido wuxuu dhadhamin doonaa inuusan dawladnimo doonayn isla markaana haduusan dawladnimo doonayn waxa ku xiga waxay noqonayaan in qabiilnimo loo kala